السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود واضح أدي هذا وما تنتهين مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه ودي هوسات كأقل كوكيل هذا كونغرس كمريكان كأقابل سن لحسابتن كيبارتان هذا أيامانت وحا السؤال ويديين نينك سيدكم الجار كحلك إذا ماذا آيس وجوها يا تود لاينس نينك immigration كواحدة immigration كملاحظة كه USCIS تا جوزيف إدلو إذا ماذا CBB ذا نينك ملاحظة كه أولي رادو رودني سكوت arrimaha la xiriira howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa wax laga weydiiyay qaarkood waxa la weydiiyay ma iscasilaysaan arintaasi waa ay diideen iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isagu maanta qaar ka mid ah ganacsiyada yaryar ay shir jiraa'id ku qabteen magaalada Minneapolis ayaa waxa uu sheegay maadaama baarlamaankii gobolka Minnesota uu furmay inay isku day doonaan in lacago la siiyo ganacsiyada yaryar maadaama howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan Minneapolis iyo St. Paul oo ganacsigoodii si aad ah u saameeyay dhalinyaro fara badan oo ballan maxkamadeed oo master hearing ah loo soo geliyay bilaha soo socda qaarkoodna ay maanta soo mareen dhalinyaradaasi waxaa loo soo bandhigay in wadanka Uganda loo masaafurin karo oo ay ku noolaan karaan iyo in kale arintaasina waan idin la wadaagayaa waxaan ognahay Congress-ka in ay xakiyeen miisaaniyadii ama lacagtii la siin lahaa wasaaradda amniga gudaha oo ciidamada ICE iyo kuwa xuduudaha ay hoos yimaadaan maadaama ay dimuqraadiyiintu ay ka dalbanayaan waxyaabo dhowr ah inay dhaqan geliyaan oo isbedel lagu sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo laakiin sida muuqata hadda labada xisbi waa isku afgaran la yihiin maanta guddi hoosaadka aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka u qaabilsan la xisaabtanka iyo baaritaanada ayaa waxa ay u yeereen Todd Lyons oo ciidamada ICE ku meel gaar ah hogaankooda u haya Joseph Edlow oo waaxda immigrationka USCIS ta madax ka ah iyo waliba Rodney Scott oo ciidamada CBB isaguna madax ka ah su'aalo dhowr ah ayaa halkaasi lagu weydiiyay ninka madaxda ciidamada ICE ka ah ayaa waxa mid kamid ah xildhibaanada uu weydiiyay ma jiraan qof kamid ah ciidamada ICE oo shaqada laga ceeliyay intii howlgalladan ay gobolada Mareykanka ay ka wadeen oo fal anshax darro ah lagu eedeeyay maya ayuu yiri sidoo kale waxa la weydiiyay ma jirtaa in laba qof la dilay intii howlgalladan ay socdeen markii hore uu ka aamusay waxa la yiri ninkii kalkaaliyaha caafimaad ee Alex Brady iyo hooyadii oo la dilay 24kii bishii January iyo sidoo kalena hooyadii Renee Good oo iyadana la dilay 7 January labadaasi qof waa dhinteen Soomahan ha ayuu yiri sidoo kale waxa la weydiiyay arinta la xiriirtay in madaxweynuhu iyo qaar ka mid ah hoggaanka in wasaaradda amniga gudaha ay ku tilmaameen in argagaxyaal gudaha ay ahaayeen arintaasi kama jawaabay ayuu yiri baaritaana ayaa sidoo kale socdo markaasi waxa sidoo kale la weydiiyay wiilkii da'da yaraa ee 5 jirka ahaa oo ciidamada ICE intay ka wadeen Minneapolis isaga aabihii Texas ay ku xireen walow markii dambe toddobaadkii la soo dhaafay la soo daayay wuxuu yiri wiilkaasi aabihii ayaa ka cararay ciidamada ICE-na sidaas ayay u qabteen ay macnaha si ay u hayaan markii dambena aabihii dib ayaa loo soo qabtay laakiin sidaas ma ahayn sida ay wax u dhaceen waxa sidoo kale la weydiiyay ma iscasilaysaa maya ayuu yiri isma casilayo haddaba isagoo su'aalahaasi la weydiinayo ninka ICE madaxda sida ku meel gaarka actin u ah xilka u sii haya sidoo kale Todd Lyons oo ciidamada ICE ku meel gaar ah madax ugu ah ayaa waxa sidoo kale la weydiiyay ma jirtaa in dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ee wadooyinka socda ciidamada ICE intay istaajiyaan ay weydiiyaan inay muwaadiniin yihiin iyo in kale maya ayuu yiri arintaasi haddana waa iska fogeeyo waxa uu yiri ciidamada ICE waxa ay wadeen howlgallo bartilmaameed ah oo dadka ay doonayaan meesha ay joogaan ay yaqaanaan ay ugu tagayaan laakiin xildhibaanka su'aasha weydiinay wuxuu yiri arintu sidaasi ma ahan waxa jiray in dadka qaar midabkooda iyo accentiga luqadda ay ku hadlayaan lagu bartilmaameedsanayay ama in ay og yihiin dad soo galootay oo dadka aan cadaanka ahayn la bartilmaameedsanayay waxa la weydiiyay sidoo kale inay jiraan wadamo sidan sameyn jiray sida Naaziyiintii Jarmalka iyo midowgii Sofiyeeti inay sidaasi sameyn jireen waxa uu sheegay inay jiraan wadamo noocaas sameyn jiray marka macnaha waxa la leeyahay maxaa Mareykanka iyo hadda wadamadaasi ay ku kala bedelan yihiin maadaama muwaadiniintii Mareykanka iyagoo wadooyinka socda la leeyahay sharci ma leedahay mise sharci ma leeyahay qaarkoodna iyagoo sharci la xitaa la xiray ama dhibaatooyin loo geystay harassment ay ka mid tahay qofkaasi la jijiiday gaarigiisii laga soo bixiyay iyadoo arrimahaasi la weydiinayna mar kale waxa uu yiri sidoo kale xildhibaan lagu magacaabo Eli Crane oo Arizona laga soo doortay ayaa waxa uu yiri madaxweynayaashii hore wadanka u soo maray masaafurin waa ay sameyn jireen oo dad fara badan wadanka waa ay ka masaafuriyeen laakiin qalalaasan noocan oo kala ah ma aysan dhici jirin waxa uu sheegay in madaxweyne Clinton uu masaafuriyay 12 milyan waxa qalalaasana aysan dhicin Bush 2 milyan ayuu masaafuriyay Obama oo madaxa masaafurinta madaxweynayaashii ugu dambeeyay hadda wadanka Soomaaliya leeyahay isaga ayaa ugu masaafurin badnaa 5 milyan
ayuu masaafuriyey ayuu yiri marka qalalaasana ma jirin. Trump xilligiisii hore 2 milyan ayuu masaafuriyey, Biden 4 milyan ayuu masaafuriyey. Trump hadda markii uu xilka kusoo laabtay hadda sanadkii la soo dhaafay 2025 625 kun oo qof ayaa la masaafuriyey, 2 milyan dad ka badanna si mutadawacnimo ah ayay wadankoodii dib ugu laabteen. marka maxaa sababaya ayaa la weydiiyey ninka madaxda ka ah ciidamada CBP-da in xilligan qalalaase la sameeyo iyadoo waliba lagu gabanayo in masaafurin la sameynayo dad sharci darro ah ama dambiilayaal. isaguna waxa uu yiri arintaasi waxaa sabab u ah in fikrado qaldan laga gudbiyay ciidamada ICE iyo waliba kuwa xuduudaha, arintaasina ay sabab u tahay warbaahintuna ay arintaasi boombonisay. iyo su'aalahaas iyadoo la weydiinayna sidoo kalena nambaradaasi madaxweynayaashii hore ay masaafuriyeenna la soo bandhigayay waa kan xildhibaan Eli Crane oo Arizona laga soo doorto arrimahaasi ka hadlay. waxa kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo qaar kamid ah milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ee maanta shir jaraa'id ku qabtay Minneapolis. howlgallada ku dhawaad 3 bilood oo la soo dhaafay ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxa ay saameyn xooggan ku yeesheen ganacsiyada yaryarka ah. qaarkood waa ay xirmeen maadaama dad imaanaya aysan jirin isla markaana kiradii qaarkood aysan iska bixin karin. haddaba gudoomiyaha gobolka waxa uu sheegay maadaama kalfadhigii baarlamaanka uu dib u soo laabtay inay isku dayayaan in lacago loo ansixiyo si ganacsiyadaasi ay u sii jiraan ama ay u sii shaqeeyaan. waxa uu sheegay arrintan waxaan sameynay xilligii coronavirus-ka, laakiin arrintaasi waxa ahayd arrin masiibaha waxba laga qaban karin. laakiin waxa uu yiri masiibadan waa mid bini'aadamku uu sameeyay, sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa inaan ganacsiyada yaryar caawino. hadda dowladda hoose ee Minneapolis ayaa toddobaadkii hore waxay meel mariyeen lacag 1 milyan oo dadka degan Hennepin County kirada looga bixinayo. dad badan ayaa guryahoodii ka baxa la yiri, marka waxa ay ansixiyeen inkastoo hadda maayarka la filayo inuu saxiixo 1 milyan oo dollar in dadka kirada iska bixin waayo maadaama dadkii aysan shaqo aadaynin in kirada looga soo bixiyo dadkaasina aan guryaha laga saarin. waa kan gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isaguna arrimahaasi ka hadlay. dhinaca kale maalmahan waxaa jirtay dhalinyarada Soomaalida ah ee wadanka sharci darrada ku soo gashay in ballamo master hearing ah loo soo gelinayay systemka loo soo gelinayay. ilaa 40 dhalinyaro ah oo Nebraska ku nool waxa ay sheegeen in bisha March oo hadda TPS-ta Soomaalida Temporary Protection Status-ka uu ka dhacayo 17 in 17 loo soo geliyay. dhalinyaro kale oo Missouri ku nool iyagana waxaa loo soo geliyay 16 bisha oo ilaa 10 qof ah. dhalinyaro maanta marka maxkamadaasi master hearing-ka soo martay ayaa waxa ay ila wadaageen in ay jiraan in dhalinyaradaasi loo soo bandhigay in wadanka Uganda loo masaafurin karo. Uganda waxa uu ka mid yahay wadamada Mareykanka ka ogolaaday in dad aan dadkooda ahayn loo soo masaafuriyo. dadka dhalinyarada marka Soomaalida waxa la weydiinayay weliga Uganda ma ku soo noolay mase ku noolaan kartaa. dhalinyarada intooda badan waxa ay sheegeen sida ay sheegeen in aysan ku noolaan karin wadankaasi Uganda. hal mid oo kamid ah ayaa yiri wadankaasi 1 sano ayaan ku noolaa. marka waxaa la siiyay 14 maalmood oo iga soo fikiraan in dhalinyaradaasi Uganda loo masaafurin karo iyo in kale. marka sida muuqata hadda dhalinyarada master hearing-ka ay ugu jirto bisha March ee soo socota arrimahaasi oo kale ayaa sugaya maadaama TPS-ti ay ka dhacayso in dhalinyarada Soomaalida ah Uganda maadaama uusan ka fogeyn Soomaaliya la geeyo wadanka Uganda oo la yiraahdo halkan waa inaad wadankiini ka sii aadaan. sida marka muuqata arrintaasi maadaama TPS-tina ay dhacayso inta badan dhalinyarada Soomaalida ee wadanka sharci darrada ku soo gashay bishan ilaa iyo bisha 3 ee March laga gaarayo dhamaadkeeda ayaa ballamo master hearing intooda badan loo soo wada geliyay. oo hadda 40 dhalinyaro oo Nebraska ku nool waxay sheegeen in 17 bisha 3 in loo soo geliyay. si aan idin sheegay kuwa Kansas Missouri ku noolna waxay ii sheegeen in loo soo geliyay in 16 bisha March. hadda bishan February-na sida muuqata waa ay bilaabataba maanta dad ayaa maro waatan Uganda loo soo bandhigay. marka sida muuqata dhalinyaradii Soomaalida waxa muuqanaysa in la leeyahay wadankaasi Uganda maadaama Soomaaliya uusan ka fogeyn halkaasi ayaan idin celinaynaa. marka waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordhay dhalinyaradaasi qaarkood haddii aan helana wareysi ayaan la yeelan doonaa waa idin soo gudbin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.